بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasta naga daawanasaan kuna soo dhawaada warka telefishinka Soomaali News oo ka daawanasaan xarunta telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa. warkana waxay idin soo jeedinaysaa anigu Xasan Cabdilaahi Cismaan. qodobada aan warkan idin ku haynana waxaa kamid ah guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay xilliga la qabanayo diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland. baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay guddiga adeega garsoorka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Somaliland ayaa maanta gaaray magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta Muqdisho ku qabtay kulan ay ugu baroordiiqayaan dadkii dhawaan ay doonidu kula qalibantay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga. daawadayaal warka dibadda idin haynana waxaa kamid ah suuq lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala dalka Suuriya ayaa la duqeeyay. qodobada iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa warka telefishinka Soomaali News ka daawanaysan xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. imika haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh.